السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وين ودا سلاميا قف كستو oo idhageysan doona hadda iyo mar kale taba klibkani wuxuu ku socdaa hooyooyinka tayada fiican leh ee ka fikirta waxa fog iyo hooyada aan tayada badan lahayn ee ku mashquulsan waxa hareeraheeda ka buuxa iyo xasidka ku jira ee indhaheedu bas ay qaban hayaan waxa qaladka ah ee aanay qabanahaynba waxa fiican ee hareeraheeda jooga. Hooyadaasi ilmo nooci ah bay soo saaraysaa bulsho sidee ah ba agteeda ka soo bixi kara la'aana bulshay soo saaraysaa hooyo walba. Hooyada haysata cilmigeeda kordhisa, tayadeeda fiicnaysiisa, maskaxdeeda kobcisa, hareeraheeda waxa jooga inay haysato oo ilaahay siiyay ama siin karo ka soo qaada maxay soo saari kartaa ilmo nooci ah. Hooyadaasi waxay soo saari kartaa ilmo tayo leh, ilmo qiimo leh, ilmo hore u soconaya, ilmo kalsooni leh, ilmo maskaxdiisu buuxdo, ilmo dhinac kastaba ka dheelitiran. Allah ayaa wax dheelitira, Allah ayaa wax qiimo badiya, Allah ayaa wax walba ina siiya. Arsaaqadeena iyo nolosheenaba Allah ay gacantiisa ku xiran tahay, laakiin Allah wuxuu ku yiri adduunkan ugu noolow in aad muddo badan joogaysid, kuna fikir in aad daqiiqad sikin aad ka tagaysid. Allah uu ku baneeyay jida fiican uu markiisa horeba quraankiisa ku soo dajiyay oo ina yiri nolosha iyo dhimashadu labadaba qofka Allah ayaa siiyay. Ilmo yar oo sabiyaad arkaysaa dhimanaya, qofka booba 100 sano jira arkaysaa dhimanaya oo adduunkii tacbaan kaga tagayo oo sariir yaala. qof 20 jiro adduunku cusub yahay sida dardar u haya aad arkaysaa dhimanaya. Marka Ilaahay baa wax walba haya, laakiin qofku waa inuu ka fikiraa tayada uu soo saarayo ee hareerihiisa ka buuxa. Aabahana markale ka hadli doona. Hooyada maxaa la doonayaa tayada leh inay maskaxdeeda kobciso, inay qofka wuxuu kaga roon yahay weydiiso walaalkeeda, waxa qofka kala haysto inaanay mashquul ku noqon ay ku fikirto Allah baa ku siiyay kuna siin kara kanuu kan haysto. Qofku wuxuu haysto ku guubaabiso ku farxad gelisa. Marka hore ayadu isjeclaata, marka labaad ka fikirta ilmaheeda iyo qiimaha uu leeyahay in mashquul ku noqonin. Gabadhi waxay tiri iyo bilaadan kale waxay kala wadaan iyo ummadda xun waxay wadaan ee ka fikirta in iyadu ay nafteeda ku kalsoonaato oo qiimo geliso oo waqti geliso fursad weyn siiso nafteeda. Waayo maalin kasta oo dhalata iyo habeen kasta oo taga waxa aynu haysanaa waxa weeyaan aynu habeen kala seexanaa maalintii markaa soo toosnayno aan adduunka ka helaa waxa weeyaan cilmi. habeen wal kasta iyo maalin kasta oo joogto waxa ku soo kordhiya cilmiga. Haddaba haddii aad iska beer dareyso qabto iyo haddii aad kaydsato isticmaasho. Gaalada aan la joogno maanta wadan gaaleed baan joogaa anigu ku noolahay. Gaalada aan la joogno waxyaabo fara badan oo qiimo badan bay leeyihiin. Markaad u fiirsato waa in aad tiraahdo wow aroorisa wallahi qiimo leedahay tani. diinteedaaba hore igu sheegtayba alla ilaahu soo hanuun qofkiina la jeclaataa wanaag iyo janno. la'aana baryadaadu baryaysaa alla wuu siin karaa inuu ilaahay islaam ka dhigo oo tayalo qiimo leh. Number 2 ilmuhu markuu yar yahay oo babyska yahay markaad la sheekaysato ee aad waxaan ku agtiisa wax fiican ka samaysid ee waxaan ku maanta oo dhan maxabba iyo kalgacayl iyo jacayl tusto. ilmuhu xilli waxa jiro uu dhib yahay iyo xilli uu dheef yahay. xilligu dhibta yahay waxa weeyaan intuu uu ka yar yahay 3 sano intuu ka hooseeyo maanta oo dhan wax buu qasayaa, maanta oo dhan wax buu rafaadinayaa. waxaad seexanaysaa adigoo oo daalan oo dhibaataysan oo isleedahay tul xaggaad jiifsataa bas raadinay. xilligaas ilmuhu wuxuu baahan yahay inaad fursad badan siiso ood ag fadhiisato ood marba meel la fadhiisatid banaanka ula baxdeen oo marba wax tustiin oo markaad wax akhrisid wixii u sheegtid oo aad taabatid oo uga sheekaysid markaa rabto ku haysid. ilmihii markaa wuxuu noqonayaa ilmo haadi ah oo degan oo
ku dhaqmaya indhahaaga siday u shaqaynayaan waxa aad kaa soo socdo xitaa wuu fahmaya marka aad la hadlayso sida aad ula dhaqmayso sida aad ula hadlayso ogyahayba inta aanad hadlinba number 2 number 2 marka aad ilmaha uu wax qaso aad wixii intaad qaadataad aruuriso iska masaxdo way waa xanaaqay marmarka qaar laakiin waa inaad xanaaqaaga caburisaa waana tusin ilmaha aad hadhow marka dambe aad tiraahdo alxamdulillaah allihii aan boqolaal kalena siinin anigana isiiyaa mahadda iska leh waa number 1 oo de ilaahay ugu mahadnaqdo tirada alxamdulillaah rabbil caalamiin waayo ilaahay waqti baa jira dad badani ay fadhiyaan oona ilma haysanin adiguna aad haysatid waxaan ku buuqaysid ku qaylinaysid dilaysid rafaadinaysid xilliga adigu aad haysatid waqtiga aan haysanin oo raba yaa markii aad ku siiyad dhabta saa ugu qabatid oo saa u ruuxdaad haysatid marka alxamdulillaah rabbil caalamiin wayna ku mahadnaqnaa wayna ku shukrinaqnaa wayna ilaahay ugu mahad celinaa waa in aynu ilmiheena ilaahay ku xidhnaa ilaahay barnaa ilaahay inaan number 1 uga dhigno hadda habloyaal badan oo waxaad arkaysaa bilaa macno naftooda ku gadaya waxaan qiimo lahayn naftooda ku gadaya way sababtoo ah way maran yihiin ibr ayay yihiin sifir waxba ma haystaan maskaxdoodu kuma jirto wax badan oo alla ka cabsi ah hadday alla ka cabsanayso meelaha fusuqa ismay dhigteen hooyo weeyaan mar waa gabadh mar ilmay dhali doontaa oo berritoola hooyo u noqon doontaa marka adigu kaad dhasho ama kuwa aad haysatiin wax badan ku buuxiya hooyooyin baynu nahnay wax badan ilmaha ku shuba wax badan ilmaha ku shub wax badan ilmaha ku shub ilmahaaga wax kastoo badanaad ku shubto wax badanoo hadhow toolo kaa faa'iido ilmahaas maskaxdiisa ay uga buuxdo ilmuhu waxa ma ilaawo waxa xunaad ku samayso maskaxday u fadhiistaan baqdin buu ka qaadaa wuxuu ka qaadaa walwal wuxuu ka qaadaa dadka inaanu kalsooni haysanin inaanu bulshada kale la dhaqmaynin la dhaqmi karin waayo wuu baqayaa wax kastuu ka baqayaa wuxuu ka baqayaa in la dilo wuxuu ka baqayaa buuq in lagu qayliyo waayaadaha kusoo qaylin jiro soo dili jiray waa in aynu ka taxadarnaa ilmaha maskaxdooda waa dhalo way yaryar yihiin maskaxda haddii adiga aad abuse ku jirto abuse-ka inaga isgelin haddaan dumar nahnay number 2 waxaad arkaysaa hooyooyin markaad soo kacdo subaxdii ee aad ama social media daawato hooyo walba waxay ka hadlaysaa ninka cuntadiisi ninka sariirtiisi ninka kabihiisi ninka aniga imee ilmahaygi meeye asaga bes ma guriga muhiimadda dhantaa ilmo yar baa ii jooga ilmaha wayna mas'uul number 1 ka dhiga number 2 waa inaad number 1 waa inaad naftaada ka dhigtaa number 2 waa rajada aad haysatiin labadiinuba ilmaha ilmaha ka fikirtiin asna waa inuu number 1 naftiisa ka fikiraa number 2 waa inuu ilmihiisa ka fikiraa san waa inaad labadiinu iska fikirtiin way sababtoo ah labadiinu bulsho ayaa korinaysiin ilmuhuna waa bulsho ayuu ka mid yahay bulshada dhan aan dhex joogno ayuu ilmahaasi ku dhex milmaya waxa fiicanaad labadiinu bartaan ayuu ilmahaasi ku tegaya ku dhaqmaya hooyada intaasaan leeyahay waa inay hooyo kastaaba iska fikirta hadalkaygaas aad u gaadho waa inay hooyo kasta iska fikirto waayo sababtoo ah berri marka uu dhib kugu dhaco ma qaylinaysid waayo adiga ayaa naftaada jecel waxaad leedahay wax kastoo kaa taga ilaahu ilmo kaa dhinto ilaahu nin kaa tago ilaahu mad wax kale oo maalad haysatay weysid waxba uma arkaysid waayo adiga qani baad naftaada wax badanaad bartay qani baad too wax badanaad ku shubtay oo wanaaga qani baad too diintaadii cilmigaaga ku celinayaad ku shubtay ilaahay baa inoo marka qaar maxaad su'aalooyinka shayuukhda la weydiinaya markaad aragto waxaad leedahay marka qaar maxayadii baa naga tagtay maxishoodkii baa naga tegay ma waxaan noqonay dad ilaahayba ka cabsanahayno ma garanayo wax aan ku masalaba marka qaar waan xishooda waayo sheekha waxa kaaga habboon oo kugu wanaagsan wax aad wax ka faa'iidaysanaysid inaad weydiisid laakiin waxyaabo fusuqa markaad la soo hortimaadaan shayuukhda aad weydiisiin inaan bulsho dhimanay nahnay baa halkaa ka muuqanaysa maskaxdii dhammaydba waxaa kugu dhacayaba tashwiish hagay dadkani ku noolaan jireen maan la soo korinin way
isaa ugu dhaqmayaan laakiin waa la soo korshay hooyo macaan baa soo koriday laakiin hooyadaasi way dulminsanayd waa la rafaadinaya wax dhici karta aabba ag joogay ama bulsho ag joogtaa rafaadinayso dulminaysay ilmihii soo koray agteeda kusoo korayn saasaanu wax fiican oo diino u haysanin marka waxaa imanayso inay shuyuuqda weydiyaan waxaas aan qiimaha lahayneen wax alali waxay ku sugan tahay bajirin iyo wax lagu masalo hadduu ninku qabaad nin kala guursatay de waa xaaraan waad ogtay inay xaaraan tahay waayad guursani ilaahay baaba banayninbe hadalku sii dheeraan maayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta wanaagsan ee aniga iga timi ilaahay bay u sugantay inta xun ee aniga iga timi aan ku hadlaynaa shayaadiin marka بالنسبة إيه دلقاطة أيان لا إيه دلقاطة أدبرني ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.